bismillahi raxmaani raxiim idil ahaantiinba daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka la yaabka lahaa ee adduunka iyo waliba telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad ka daawataan halkan waqtigan oo kale barnaamijka dhacdooyinka la yaabka leh ee telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland daawadayaal toddobaadkan waxaan idinku hayaa dhacdooyin xiiso badan oo aan markaas si gaar ah ugu soo xulay daawadayaasha ku xidhan barnaamijkani iyo waliba daawadayaasha iyagu xiiseeya ee mar walba la socda telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan dhacdooyinka aan idinku soo deyn doono hadii aan hal iyo laba kamid qodobada aan idinku hayo aan idin hormariyo ayaa waxa kamid noqon doona gabadh rabtay inay buuga dhacdooyinka la yaab kale kaga qayb gasho dhacdo ah in ay muruqeeda ku burburiso tufaax waxa kaloon daawadayaal idii haya oo aan barnaamijka dhacdooyinka idinku soo deyn doona hadii Allaha awoodda la idmo nin isna raba inuu kaga qayb galo isku day ah in uu sankiisa inta uu iska galiyo baasto dabadeedna uu ka soo saaro afkiisa dhacdooyinka iyo waliba kuwa kale aad uga xiiso badan ayaa qadarka nus saac ah ee soo socda hadii Allaha awoodda la idmo daawadayaal aad ku daawan doontaan barnaamijkan ee ku soo dhawaada oo waqtigiina nagula qaata barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale aan soo qabto xubinta ugu horeysay iyo barnaamijkeena dhacdooyinka iyo toddobaadkani maxaa ay noqon doontaa xubintaan idin soo xulay ee aan idinku furayo barnaamijkan iyo toddobaadkani ayaa waxay noqonaysaa daawadayaal gabadh rabta in World Genius Record lagaga diiwaan galiyo isku day ah in ay muruqeedaasi ku jabiso markaasi tufaax tiradiisu badan tahay haddaba shuruudaha gabadhan lagu xiray ee buuggan World Genius Record uu ka rabo ayaa waxay tahay inay muddo 1 minute gudaheed ku jabiso muruqeeda tufaax gaaraya 6 xabo halkaas minute ee loo qabtay 6daasi xabo ma ku jabin doontaa ma ka yareyn doontaa waa mid aynu goob joog daawadayaal u ahaan doono ee dhacdada ugu horeysay iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka iyo toddobaadkana ila fiirsada dhacdadana waxaynu ku soo qaadan doonaa gabadhan aad arkaysaan ee idin muuqata daawadayaal oo rabta inay buuga dhacdooyinka la yaab kale ee World Genius Record kaga mid noqoto dhacdo ah in ay muruqeeda ku burburiso tufaax waa dhacdo aad loola yaabo waa dhacdo aad u khatar badan haddaba bal gabadhan ayaa waxaynu eegi doonaa suurtagalnimada ah in ay dhacdadani ku guuleysato Ms. Limburg. Yes. You're about to attempt the Guinness World Record for the most apples crushed with the biceps in 1 minute. Now the apples must be crushed individually and the apple must also be crushed into at least 2 separate pieces. Now to achieve the Guinness World Record's title, you must crush at least 6 apples in 1 minute. Is that clear? Yeah. All right. If you are ready, we may begin the attempt. buugga World Genius Record ku shuruudaha uu gabadhani ku xiray ayaa waxay yihiin in muddo 1 minute gudaheed ay muruqeeda ku jabiso ama ay ku burburiso tufaax gaaraya 6 xabo ma suura gali doontaa bal isku dayga gabadhan ayaynu markana jaleeci doonaa ee daawasho wanaagsan All right, let's do this, Lindsay. Good luck. You got this. Okay, Ms. Limburg. 3, 2, 1, go! Oh my God! Are you kidding me? Dries it off, first one's gone, no problem at all. That one goes squirting out. Lindsay is allowed to use a towel to wipe the apple juice off her arm. She's got to get those apple pieces off of there, causing her valuable time. Oh! The pressure, there we go. Second one's down. waad arkaysaan daawadayaal wali in ay wado in ay muruqeeda ku burburiso tufaaxani bal aynu eegno gunaanadka iyo halka ay la gaadho Easy one. She's putting her all into every single crush. Brute. Straight. Oh, that one goes flying, but there was a piece that came off it. That's going to be hard to call right, Mr. Stewart. That one breaks into pieces. Got a few of them there. That smaller pieces came off, but it were 2 pieces. She is taking a lot of time wiping her arm, but she's really got no choice. She's a little over halfway through. Oh, she's tiring. Can she switch arms? Nope. She must use the same arm throughout. Working hard on that one. Gets rid of that apple. Tries to dry off. 10 seconds left. 10 seconds. She got it. There she got it. There's another one. Wow. Can she get one more? Yes, she gets one more. Get one more. One more. No. Oh, so close. Let's hear it for you guys.
That was awesome! I want to see that explode in slow motion. Zach and Liz, what do you got there? It was amazing. You did it in heels, too. Liz can't walk in high heels. Lindsay did show incredible power from the start. We noticed she spent a lot of time wiping off that juice, and as the attempt progressed, she held her arm much closer to the body. That gave her better leverage and compensated for the slippery juice. Stewart's been inspecting the apple chunks, and it looks like he's got the count. Ms. Lindberg, you just attempted the Guinness World Record for the most apples crushed with the biceps in 1 minute. To achieve the Guinness World Record title, you had to crush at least 6 apples. The number of apples that you successfully crushed in 1 minute was 8. daawadayaal gabadhan soo bandhigaysay inay muruqeeda ku burburiso tufaaxani ayaa buugga dhacdooyinka World Genius Recordku waxa uu ka rabay in muddo 1 minute gudaheed ay ku burburiso oo ay muruqeeda markaasi tufaaxaasi ku burburiso tufaax gaadhaya 6 xabo. gabadhani waa ay dhaafisay 6daas xabbe ee laga rabay waxaanay muruqeeda ku burburisay tufaax gaadhaya 8 xabo. sidaas ayaa ay kaga mid noqotay dadka lagu diiwaan galiyo ama laga diiwaan galiyo buugga dhacdooyinka la yaabka leh ee World Genius Recordka. halkaasna waxay ku hantiday abaalmarinta World Genius Recordku uu bixiyo. Congratulations. Let's hear it for you guys. How do you feel? This Guinness World Record's for the girl. aynu intaasi kaga nimaadno xubinta ugu horeysiiyo barnaamijkeena dhacdooyinka iyo toddobaadkan. dhacdada labaad ee aan idin hayo ee aan idinku soo dayn doono barnaamijkuna waxay tahay nin u dhashay wadankaasi Hindiya oo raba isna in buugga dhacdooyinka la yaab kale ee World Genius Recordka inuu kaga qayb galo isku day ah in uu afkiisa ku hayo mushamacyo aad u ololaya. haddaba ninkan ayaa isna shuruudaha lagu xidhay ee laga rabo ayaa waxay tahay in muddo 30 ilbiriqsi ama 30 sakan gudahood ah uu afkiisa ku hayo mushamacyo ololaya oo dhan 15 xabo. bal isku dayga ninkan ayaynu daawadayaal jaleeci doonaa. daawadayaasha laakiinse waxaan uga digayaa inay isku dayaan dhacdooyinka khataraha badan ee ay halkani ka daawadaan. dhacdada labaad iyo barnaamijkeena dhacdooyinkana daawasho wanaagsan. ninkan aad arkaysaan daawadayaal waxa uu dhashay wadankaasi Hindiya. isku daygiisu waxa uu yahay in uu mushamacyo tiro badan oo aad u ololaya in uu afkiisa ku hayo qadar waxoogaaya. haddaba World Genius Recordku ninkani shuruudaha uu ku xidhay ayaa iyaguna waxay yihiin inuu 30 ilbiriqsi uu afkiisa ku hayo tiro gaadhaysa 15 xabo amaba 15 mushamac oo markaasi ololaya oo uu dab ka ololayo in uu afkiisa ku hayo. waa dhacdo aad u khatar badan. daawadayaasha waxaan uga digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka noocan oo kale ah. bal ninkan u dhashay wadankaasi Hindiya iyo isku daygiisana markana aynu jaleecno. All 15 starting the stopwatch. sidaad arkayseen daawadayaal ninkan u dhashay wadankaasi Hindiya waxa uu afkiisa ku hayay 15 xabo oo markaasi mushamacyo ololaya ah. waxaanu ku hayay qadar gaadhaya 30 ilbiriqsi ama 30 sakan. waqtigaasi oo ah waqtigii loo qabtay. ninkani ayaa sidaasi ku dhameystiray waxaanu ninkani ku guuleystay oo sidaasi ku galay buugga dhacdooyinka la yaab kale. aan soo qabto dhacdadan markan gacantaydu ku hayo daawadayaal maxay noqonaysaa dhacdada adiga filaysaan. waa dhacdo aan isleeyahay dhankayga aad ayaa ay u khatar badan tahay. dhacdadan ninka isku dayaya ayaa waxa uu doonayaa inuu sankiisa intuu iska geliyo baasto dabadeedna uu ka soo saaro afkiisa. waa dhacdo aad u khatar badan oo laga yaabo inay waxyeeli karto.
daawadayaasha waxaan uga digayaa mar labaad inay isku dayaan dhacdooyinka noocan oo kale ah haddaba ninkan ayaa buugga dhacdooyinka la yaabka leh ee adduunkani u yaala ee laga diiwaangeliya waxa uu ka rabaa muddo 1 minute ah gudaheed inuu sankiisa iska geliyo baasto gaadhaysa 6 xabo dabadeedna uu ka soo saaro afkiisa bal dhacdadan khatarta badan ayaynu eegi doonaa iyo ninkani inuu ku guuleysto ee daawasho wanaagsan. World record for the most strands of spaghetti eaten through the nose in 1 minute. Now, as you know, you must ingest each strand individually through your nose and eject it through your mouth. And all strands must be unbroken in the process. The minimum requirement to achieve this Guinness World Record is 6. Is everything clear? Everything is clear. Okay, well, if you get into position, we'll begin to... Don't get it, Carly! dhacdadani daawadayaal waa mid aad u khatar badan ninkani waxa uu rabaa in uu buugga dhacdooyinka la yaabka leh ee World Guinness Record-ka kaga qayb galo dhacdo ah in uu sankiisa inta uu baasto iska geliyo dabadeedna uu ka soo saaro afka daawadayaasha waxaan uga digayaa inay isku dayaan dhacdooyinka noocan oo kale ah ninkana daba buugga dhacdooyinka la yaabka leh shuruudaha ay ku xidheen ayaa waxaa ka mid ah in uu 6 xabadood oo baastada dhaadheer ah inta uu iska geliyo sankiisa dabadeedna uu ka soo saaro afkiisa muddo 1 minute ah ayaa loo qabtay inuu 6daasi xabadood inta uu sankiisa iska geliyo dabadeedna uu afkiisa ka soo saaro bal waxaynu eegi doonaa 6daasi xabo ama 6daasi baasto ee loo qabtay in uu sanka iska geliyo dabadeedna uu afka ka soo saaro in uu ku guuleysto in uu gaarsiiyo iyo inuu ku guul dareysto labadaba ee daawasho wanaagsan. You let me know when you're ready. Born ready. 3, 2, 1, go. All right, Tony, come on, buddy. He's got the first round. Very good. All right, he's got the first one up there. There, he's working it. He's working it. He's working it. He's in trouble already. Oh. He's got one out of there. He's recovered. Snort that spaghetti! Oh, he's going to stick to the left nostril. He's got the second one up there. Oh, yeah. I got a little trouble with that one too. And he's doing some maneuvering with the throat, which brings the plastic out of the mouth. waad aragtaan daawadayaal weli waa wadaa bal aynu eegno gunaanadkaiyo inuu guusha gaadho ninkani. Here we go. He's got another one in there. That's 3, but the clock is ticking. He's getting close. Can he do it? Can Tony pull out a victory? Strands of spaghetti blew his nose. He's got to pull out 6 complete strands to get the Guinness World Record. And he better get moving. He's really finding his groove right now. Thank God he didn't do it with Sealy. Okay. And never get to that. A little something extra attached there. And go. Oh, okay. Let's get the Tony. Okay, a little breathe. Actually a really, really unique skill, and it does take the muscles of the nose and the mouth and the throat. As you can see there, he's doing some throat maneuvering, and it's like he's snoring and then skipping it out. It's really difficult to watch. Okay, Mr. Ketchum, just attempted to achieve the Guinness World Record for the most strands of spaghetti eaten through the nose in 1 minute. As you know, the minimum requirement was 6. You ingested and ejected 4. daawadayaal sidaad la socoteen ninkan buugga dhacdooyinka la yaab kale waxa uu ka rabay inuu ugu yaraan 6 xabo oo baasta ah inta uu sanka iska geliyo dabadeedna uu afkiisa ka soo saaro muddo 1 minute gudaheed laakiin ninkani waa uu ku guul daraystay oo waxa uu inta uu sanka iska geliyo afkiisa ka soo saaray 4 baasto oo qura sidaas ayaa uu ninkani ku guul daraystay dhacdadana may noqon mid laga diiwaan galiyay buugga dhacdooyinka la yaab kale aynu intaasi dhacdadaasi kaga nimaadno waxaad arkayseen ninkaasi inaanu ku guuleysan isku daygaasi uu rabay in lagaga diiwaan galiyo World Guinness Record-ka daawadayaashana waxaan uga digayaa inay isku dayaan dhacdada noocaas oo kale ah waayo wax laga yaabaa inay caafimaad ahaan wax idin yeesho daawadayaal halkaad barnaamijkan kala socotaan waa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland stuudiyihiisa dhexe ee caasimadda Somaliland ee Hargeysa dhacdadan markan idin soo qabanayo ayaa daawadayaal waxay tahay nin isna raba isku day ah in uu ku soo bandhigo World Guinness Record-ka
inuu ka dhex baxo quruurada gaaraya 10 xabo isagoo oo markaasi ordaya waa dhacdo iyaduna aad u khatar badan bal dhacdadan iyo ninkan ayaynu eegi doonaa quruuradahaasi waaweyn ee uu rabo inuu ka dhex baxo in ay u suurto gasho iyo in kale ee daawasho wanaagsan dhacdadan daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa ninkan aad arkaysaan oo raba inuu buugga dhacdooyinka la yaab kale kaga qayb galo dhacdo ah in uu ka dhex baxo quruuradahani aad arkaysaan haddaba shuruudaha ninkan buugga dhacdooyinka la yaab kale ee World Genius Record-ku ku xidhay ayaa waxa ay yihiin in uu ninkani ka dhex baxo quruurada gaaraya 10 xabo isku daygani waa mid aad u khatar badan daawadayaashana waxaan uga digayaa inay isku dayaan dhacdooyinka noocan oo kale ah bal ninkan ayaynu eegi doonaa isku daygan inuu ku guuleysto iyo in kale ee daawasho wanaagsan Are you ready? I'm ready. Then let's begin. You got this, brother. Good luck. Gentlemen, this ain't no illusion. Rock and roll. Half animal. Okay, Mr. Villa. I will start the clock when you start running. Here he goes. He's off. For the first pane of glass. Hits the train. Hits it hard, but he breaks. And he's not getting up. Is he okay? He's down. He's down. Here come the medics. Can you wiggle your feet for me? Good. How about your fingers? Can you wiggle your fingers? Okay. Anything else? Any tingling anywhere? No. The good news is he's moving his hands, he's moving his feet, and we want what's best for Jesus Half Animal Villa. Zach and Liz, back to you guys. How did it look from your angle? From this angle, it looked like he had the speed on the approach. He had the height, but apparently not enough velocity on the jump. We see he does hit the glass with his fist and head, but is knocked back just before the glass shatters. Look, he's given a thumbs up. It does appear that Jesus Half Animal Villa will be okay. Jesus Half Animal Villa did indeed give all his human capabilities. sidaad arkayseen ninkan daawadayaal dhacdadani kuma guuleysan waxaanad arkayseen isku daygiisii ahaa in uu kaga dhex baxo quruuradahani in uu ku guul daraystay oo ay waliba dhaawac uu ninkani ka soo gaadhay sidaas ayaanu dhacdadani ku gelin buugga dhacdooyinka daawadayaashana waxaan uga digayaa inay isku dayaan dhacdooyinka noocan oo kale ah daawadayaal waxaad arkaysaan ninkaasi dhibta ka soo gaadhay isku daygiisaasi uu rabay in uu kaga mid noqdo buugga dhacdooyinka la yaab kale waxaad arkaysaan inuu qoorta wax ka noqday isaga oo markaasi rabay in uu ka rumeeyo mid kamid ah himilooyinkiisi laakiinse dhacdadaasi mid khatar badan ayaa ay ahayd baynu oran karnaa daawadayaashana waxaan uga digayaa inay isku dayaan dhacdooyinka noocaas oo kale ah dhacdadan markan idii hayo ee aan idii soo bandhigaya ayaa iyaduna waxay tahay nin raba inuu buugga dhacdooyinka la yaab kale kaga qayb galo oo lagaga diiwaan galiyo oo ku mutaysto abaalmarinteeda isku day ah in uu labadiisa cagood la dhaco madaxiisa amaba uu ku laago haddaba ninkani shuruudaha lagu xidhay ayaa waxay yihiin muddo 1 minute gudaheed inuu 115 jeer labadiisa cagood la dhaco madaxiisa waa isku day aad u cajiib badan khatarteedana leh bal ninkan ayaynu eegi doonaa isna waxa uu kala kulmo iyaynu guuleysto labadaba ee daawasho wanaagsan You're about to attempt the Guinness World Record for the most kicks to one's own head in 1 minute. The Guinness World Record to break is 115. Are you ready? I'm ready. Let's begin. aynu soo qaadano daawadayaal isku daygan aynu ku soo qaadano ninkan isna raba in uu World Genius Record-ka ku soo bandhigo oo uu keeno isku day cusub oo ah in uu madaxiisa la dhaco labadiisa cagood oo uu ku laago waa dhacdo aad iyaduna u khatar badan daawadayaashana waxaan uga digayaa inay isku dayaan ninkan haddaba buugga dhacdooyinka la yaab kale ee World Genius Record-ku waxa uu ka rabaa muddo 1 minute gudaheed inuu madaxiisa cagiisa ku laago qadar gaaraya 115 jeer bal ninkan iyo isku daygan ayaynu eegi doonaa in uu ku guuleysto ee daawasho wanaagsan 2, 1, go! Go get him, Joel! Look at the pace. It's starting with already. Incredible. A strong start. Yeah, kicks will
left, right, left, right. weli sida daawadayaal la socotaan ninkani waxa uu cagihiisa la dhacayaa madaxiisa iyadoo aanay wax dhibi ka soo gaadhin bal aynu eegno qadarkaasi loo qabtay inuu ku guulaysto oo uu gaadhsiiyo amaba uu dhaafiyo Slowing a little. He's got to stay on pace. 10 seconds left. Finish strong, Joe. Finish strong. Come on. 5, 4, 3, 2, 1, stop. You okay? The Guinness World Record for the most consecutive kicks to one's own head in 1 minute. The Guinness World Record to break was 115. The number of successful kicks to your own head you completed in 1 minute was 127. You do it. ninkani sidaad la socoteen daawadayaal buugga dhacdooyinka la yaab kale ee World Guinness Recordku waxa uu ka rabay inuu muddo hal mida gudaheed uu cagihiisa la dhaco madaxiisa qadar gaadhaya 115 jeer ugu yaraan laakiinse ninkani qadarkaasi loo qabtay waa uu dhaafiyey oo waxa uu cagihiisa madaxiisa la dhacay qadar gaadhaya 126 jeer hal minute gudaheed sidaas ayaa ku galay oo lagu gudoonsiiyay abaalmarinta uu bixiyo buugga dhacdooyinka la yaab kale ee World Guinness Recordku Good job, well done. Let's hear it for a new Guinness World Record holder right here. Go Linebacker. daawadayaal aynu intaasi kaga nimaadno dhacdadaasi cajiibka badnayd isla mar ahaantaana khatarteeda xambaarsanayd ee aad sida fiican u daawateen una dhugateen waxaan soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka dhacdooyinka iyo dhacdadii ugu dambeysay dhacdada aan idin soo xulay ee aan barnaamijka ku gunaanadi doonaa ayaa daawadayaal waxay noqon doontaa nin raba inuu World Guinness Recordka kaga mid noqdo dhacdo ah inuu u dhaxeeyo bir masaafadeedu dheer tahay iyo shabag oo uu ku boodboodo bal ninkani shuruudaha laga rabo iyo waxa lagu xidhay waxaynu ku ogaan doonaa faahfaahinta ee daawasho wanaagsan ninkan aad arkaysaan daawadayaal waxa uu doonayaa inuu soo bandhigo dhacdo aan nooceeda hore looga dhigin dunidan guudkeeda dhacdada uu ninkani soo bandhigayo ayaa waxay tahay in uu markaasi ku boodo birtan masaafadeedu dheer tahay dabadeedna uu ku soo dul dhaco meeshan aad arkaysaan amaba booshkani dabadeedna haddana uu ku noqdo waa dhacdo aad u khatar badan ninkani ayaa buugga dhacdooyinka la yaab kale ee World Guinness Recordku waxa uu ka rabaa shuruud ah in uu 11 jeer uu inta uu meeshan ku dhaco dabadeedna uu ka boodo oo birtani soo qabsado bal haddaba ninkan iyo isku daygiisa ayaynu jaleeci doonaa ee daawasho wanaagsan The Guinness World Record to beat is 11. 11. Are you ready? I'm ready. Let's begin. Great, let's do this. Why does that mean? Mr. Sorosiak. Get him, Paul. Now. Some serious time already. There you go. Got one up. The greatest of these. Man, that is high. Oh, almost hits his head. He's getting some height there. I didn't expect him to go from his back. Now, this is the easy part. Remember, these jumps have to be consecutive. You can't miss one. Ouch! You may be in trouble already. Did Paul just knock himself out of the running? Paul Sorosiak just bumped his head jumping from a trampoline into a metal bar. That could hurt or even end his Guinness World Record dream. Readjusting his hands. And again, as Lee said, remember, start to get the fatigue. He's pulling himself up. Those arm pull-ups are so difficult. I can't do one of those. And daawadayaal sidaad arkaysaan ninkani weli waxa uu wadaa isku daygan uu rabo inuu buugga dhacdooyinka la yaab kale kaga qayb galo bal aynu eegno inuu ku guulaysto iyo in kale Has a mystery with his hand right there. I'm gonna leave it tired. he's wearing
the end. No, it's not. Oh, man, he's calling the crowd on. Come on, I can do this all day long. Psych us out with that one. Let's flip this record out of range. He's also regaining his equilibrium after facing the ceiling for such a long time. He's going for more. He's got more. Stewart's thumb getting sore from having his finger so many times. Right now his forearm seems to be burning. It's still getting the height. I'm waiting just for watching it. Oh, he almost missed that right there. Oh. That was simply incredible. Or are you kidding me? All right, great job, Paul. You take a little breather there. Zachulus, what do you got? Yes, he did set the bar very high in terms of the current record, but Paul's gymnastic conditioning really pays off. See how he grabs on and then swings his lower body onto the bar. His back lunge technique also cut down on leg and back strain with each jump. And when he faked us out, amazing. Let's see what Stewart has to say. Stewart, give the man his number. Mr. Spirosa. Yes, sir. You just attempted the Guinness World Record for the most consecutive jumps on a trampoline holding a bar. Awesome. The Guinness World Record feat was 11. Okay, did I do it? The number of successful consecutive jumps you completed, 39. daawadayaal isku dayga uu ninkani soo bandhigay si fiican baad ula socoteen. ninkan waxa uu buuga dhacdooyinka la yaab kale ka rabay ugu yaraan in uu meeshan amaba birtani ku boodo 11 jeer, laakiinse ninkani waa uu dhaafiyey tiradaasi oo loo qabtay ee ahayd 11ka. waxa uu 39 jeer ku guulaystay in uu birtan iyo u dhaxeeyo miiskani uu markaasi ka soo noqonayay. sidaas ayaa uu ku galay buugga dhacdooyinka la yaabka leh ee World Guinness Record-ka. I just wish you were more excited. You came here for Guinness World Record to reach new heights, and I'm going home happy. intaasi daawadayaal waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii dhacdooyinka la yaabka lahaa ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. barnaamijkan daawadayaal waxa idin soo saaray isla mar ahaantaana halkan idinka soo tabinayay anigoo Jamaal Axmed Naasir. barnaamijkan dhanka kamarada iyo lightingka waxa inoo hagaayay Xasan Baana Roma. barnaamijkan mid lamida intaan iskugu iman doono is aragtimo qaldanba ka hor daawadayaal waxaan idinku dhaafayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.